daawadaha qiimaha badan oo ku soo dhawow muuqaalka xiga ee Toosane Technical. Facebook waa shabakadda bulshada ee ugu weyn ee dunida laga adeegsado. Dunida maanta aan joogno waxaa lagu qiyaasayaa inay jiraan 195 wadan inta tiro kooban ee diiwaangelisan ee la yaqaano. Inkastoo laba wadan lagu muransan yahay inay wadan yihiin in kale, haddana 195 wadan ayaa dunida ka jirta. Inkastoo aan awoodin in aan 195 wadan aan sheego, haddana waxaan rabaa inaan kugu soo koobo 10 wadan ee ugu badan ee laga isticmaalo aaladda Facebook. 10 wadan ee ugu badan ee isticmaala Facebook waxa ugu horeeya dalka India. Waxaa isticmaasha 251 milyan oo qof ah ayaa isticmaasha aaladda Facebook dalka India gudihiisa. Dalka labaad waa dalka Mareykanka. Asana sidoo kale waxaa adeegsada 240 milyan oo shakhsi ah ayaa adeegsada aaladda Facebook Mareykanka dhexdiisa. Wadanka saddexaad waa dalka Brazil. Waxaa adeegsada 139 milyan oo qof ah ayaa adeegsata aaladda Facebook dalka Brazil gudihiisa. Wadanka afraad waa wadanka Indonesia. Waxaa aaladda Facebook adeegsada 136.96 milyan oo qof ah ayaa Indonesia gudaheeda ka adeegsada aaladda Facebook. Wadanka shanaad waa wadanka Mexico. Waxaana aaladda Facebook ka adeegsada 78 milyan oo shakhsi ah ayaa gudaha Mexico ka adeegsada aaladda Facebook. Wadanka lixaad ee ugu badan ee laga isticmaalo aaladda Facebook waa wadanka Philippines. Waxaa isticmaala 71.76 milyan oo shakhsi ah ayaa aaladda Facebook ka dhex adeegsata dalka Philippines. Wadanka toddobaad waa wadanka Vietnam. Waxaana adeegsada 66 milyan dhibic 72 milyan ayaa adeegsata aaladda Facebook dalka Vietnam gudihiisa. Wadanka toddobaad ee ugu badan ee laga isticmaalo aaladda Facebook waa wadanka Thailand. Waxaana adeegsada 46 milyan oo shakhsi ah ayaa ka adeegsata Thailand gudaheeda aaladda Facebook. Wadanka sagaalaad ee ugu badan ee laga isticmaalo aaladda Facebook waa wadanka United Kingdom. Waxaana adeegsada 44 milyan oo shakhsi ah ayaa aaladda Facebook ka adeegsata dalka Ingiriiska ama United Kingdom. Wadanka tobanaad waa wadanka Turkiya. Sidoo kale waxaa adeegsada 44 milyan oo shakhsi ah ayaa aaladda Facebook ka dhex adeegsata dalka Turkiya. Su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah, haddii 10kaas wadan ay yihiin 10ka ugu badan ee isticmaala aaladda Facebook, sidoo kale waxaa jiro wadamo kale oo isticmaala Facebook. Haddaba sidee shirkadda Facebook u kala saaraysaa dad yoogaasi tiro badan ee dunida ku nool Facebookyadooda kala duwan ee magacyada ugu qoran? Sida caadiga ah, sidaan ognahay markaan joogno jaamacadaha, ardada qaar ayaa isku magac ah, qaar ayaa magacyadooda kala duwan yahay. Intaasoo kun oo arday ayaa dhigta jaamacadda. Waxaan lagu kala saaraa ID card-kooda. Facebook sidoo kale qof walba wuxuu leeyahay ID u qaas ah oo lagu ogaanayo qofka uu yahay iyo macluumaadkiisa iyo qaabka wax ay u keensan yihiin database-ka shirkadda Facebook. Haddaba qof walba waxaa muhiim ah inuu ogaado ID-giisa u qaaska ah ee Facebook uu asiga ku leeyahay inuu ogaado. Sababtoo ah mararka qaar marka uu Facebook ciladoobo waxaa lagugu xujeeyaa inaad Facebook-gaaga soo dirto ama aad soo geliso baasaboor ama ID Facebook-gaaga si Facebook-gaaga haddii adiga aad leedahay cilada lagaaga saaro adigu uu ciladeysan yahay. Marka hadda baro sida Facebook-gaaga ID-giisa loo baaro oo hadhow haddii cilad ay ku qabsato Facebook-gaaga ID-giisa aad u hayn karto. Meesha magacaaga laga raadin lahaa haddii ID-gaaga la hayo, Facebook-gaaga sidaas ayaa lagu soo gali karaa oo cilada ku haysan meeshaas ayaa laga xalin karaa. Fadlan muuqaalkan qaybtiis dambe waan soo koobi doonaa, waxaan kugu tusi doonaa sida ID-gaaga Facebook loo ogaado iyo wadooyinkii aad mar lahayd. Fadlan soo dhawow. Marka ugu horeysa waxaad xulinaysaa application-kaaga Facebook si aad ID-gaaga u hesho. Kadib waxaad xulinaysaa gacantaada midig qaybta sare 3 ilig ee isdul saaran. Kadib waxaad xulinaysaa halkan magaca Facebook-gaaga. Kadib waxaad xulinaysaa 3 ilig ee yar dhinacan edit-ka geeskiis. Kadib halkan hoos waxaad taabanaysaa meesha ay ku qoran tahay copy oo waxaad copy-yeysay profile link-gaaga. Kadib waxaad aadaysaa Chrome-kaaga. Qaybta sare Chrome-ka waxaad ku qoraysaa find my Facebook ID. Find my Facebook ID. Intaan ku qor. Marka intaan ku qorto kadib oo aad geliso ama go aad dhahdo ama computer aad adeegsanaysaa enter dhahdo, waxaa ku soo bixi doono linkiyo tiro badan. Linkii ugu horeeyay ee find my Facebook ku dhufo.
kadib hoos usii wad kan iska cancel qaybta hoos meeshaan ay ku qoran tahay find my Facebook ID linkiga asu ku biish meeshaan paste ku dheh marka riix kadib wuxuu ku soo qoraa paste leh kadib allow ayaan leenahay try again ayaan leenahay kadib halkaan ayaan taawana marka find my Facebook ID qaybta hoos u wad marka waa kana Facebook ID-giisa aniga Facebook ID-giisa waa intaan haddii marka intaan aad koobiso aad Facebook tagto ay soo raayso Facebook-ga waa arkaysaa marka waa ID-ga qofka ID-giisa wixii lagu ogaanaa waana ku muhiim ID-ga sababtoo tahay marka qaar Facebook du ka ciludo waxa lagu weydiinaa ID and passport ID-ga markaas ku dhow hadii si koobiso koobi dheh kadib waxaad geysataa meelaha aad mar hadhow xasuusan kartid note-kaaga isaga qoro